habeen wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkeenna daqiiqadaha wararka Afrikada bari saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah taariikhduna waa 18 Sebtembar sanadka 2023 qodobadan caawa idin hayo waxaa ka mid ah magaalada Camaaro oo gacanta lagu dhigay toogasho xara dheere ka dhacday askari horey u dilay askari kale ayaa isna maanta xukun dil ah lagu fuliyay maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9 2023 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa garaadada iyo cuqaasha dhaqanka ee SSC oo laascaanood uu shir uga furmay duqa Muqdisho ciidanka furimaha dagaalka ayuu la dardaarmayaa mudabbiina bayna dalika la ilaha illa wa la ilaha illa haggana waajibta intana waajibta shabaabkana waajibta dadka shacabka dadkooda deegaankooda qoraynayna waa kamid xubin baarlamaanka Soomaaliland ka tirsan oo faragelin ku tilmaamay wafdigii dhawaan Muqdisho ka tegay ee laascaanood gaaray oday dhaqameed muddo ku xirnaa Soomaaliland oo hadda la soo daayay qareenkiisa ayaa hadlay dhagaysi dacwad cajiib ah oo Muqdisho ka socota iyo dabcan xubinteennii kaftanka oon caawa idinku hayno ciyaarta dhaantada oo la leeyahay marti ma baahan dhaantadu marti ma aha maqla hamoodina dhaantadu inay marti tahay reerkii lahaana way la joogtaa gobolkeedina way joogtaa aan ku bilaabay magaalada Camaaro ayaa gacanta lagu dhigay dhulkan shabaab baa muddo ka talinayay dagaaladii maalmahanba ka socday deegaanadaasi ayaa shabaabku ay si caadi ah uga baxeen magaalada Camaaro xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye oo hadda Camaaro jooga ayaa ka warramaya xaaladaasi magaalada maanta gacanta soo gashay saakay iyo xalay hawlgalladii ugu dambeeyay aan ku qabanay bacadweyne aan ku jirnay si nabad ah oo aysan wax dhiba aysan ugu gaarin ayaan ku qabanay si guud ahaaneed ayaan ula wareegnay falilaahi alxamdu ilaahay baa ku mahadsan degmada bacadweyne maantay waa xor waxaan ugu baaqayaa dadka shacabka ah oo meelaha ku qaxay oo nimanka cadowga ah ay qaxiyeen inay dib ugu soo laabtaan yimaadaan wiilashiinniya inii yimid dadkiinniya inii yimid dawladdiinniya inii timid ku soo laabta waa si nabad ah aan ku qabanna maanta alxamdulilah ilaahay baana noo fududeeyey nimankii cadowga ahaana waa jebinay waana carareen waa naga carareen waana ku sii daba jirnaa hadduu alle halkan kaliya ku hakamayno horaan u sii soconaynaa meel kastoo ay nimanka khawaarijta ay joogaanna uga daba tegayna hadduu alle ilaahay idmo dadka waxaan ugu baaqayaa shacabka haddaad ka cabsanayseen inaad dib laynkaga laabto dib laynkaga laaba maayo waa liila joogayaa waa laynka shisha maraya hadduu alle idmo inta dhimanna waa sii cayrsan doonaa hadduu ilaahay idmo dagaalkeennuna ku ekaamayo bacadweyne iyo aagagaan ku ekaamayo galmudug oo dhan aan ka saarayna hadduu ilaahay idmo meel kastoo ay joogaan oo Soomaaliya ka mid ah ilaahay idinkiisa waa ka saaraynaa waa mahadsantihiin inta aanan ka bixin deegaanadaasi magaalada Xaradheere maanta waxaa lagu fuliyay xukun dil ah askari horey u dilay askari kale intaana ninkan la tooganin ayaa meeshii toogashadu ay ka dhacaysay waxa laga akhriyay xukunkan iyo waxa uu yahayba waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida qaybteeda 12aad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle saddexle xooga 38800 Shariif Abshir Cabdiraxmaan Jaamac jinni 22 jir ah ina Faadimo Maxamed Khaliif ku dhashay gaalkacyo ka tirsan ururka saddexaad guutada 17aad ee gorgor xooga dalka Soomaaliyeed isla markaana uu dilay marxuum XW xooga 49210 Saacid Cali Cabdi Shabeel oo ka tirsanaa jiray ciidanka gorgor xooga dalka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 11 bishii 9 2023 falkaas oo ka dhacay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum XW xooga 49210 Saacid Cali Cabdi Shabeel taariikhdu markay ahayd 13 bishii 9 2023 maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9 2023 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq wahagaag laascaanood waxaa ka furmay shir ay leeyihiin garaadada iyo cuqaasha dhaqanka ee SSC gaar ahaan kuwa hadda laascaanood ku sugan arrimaha amniga ayaa aad looga hadlayaa wahagaag intaanan ka bixin qadiyadda laascaanood iyo SSC dhowaan waxaa magaaladaasi tegey wafdi Muqdisho ka dhoofay oo isugu jira
golaha baarlamaanka aqalka sare iyo weliba xubno wasiirada ka tirsan somalilan arrinkaasi way ka carootay xubin ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa sheegay inay faragelin tahay safarka wafdigaasi ay laascaanood ku tageen anigu waxaan isleeyahay raggii dagaalyaqaanka ahaa ee somalilan ku dhaadanaysay waa ragga gacanta lagu hayo wey waynu la murugoonaynaa jeelka ay ku jiraan waynu ka xunnahay halka lagu hayo aad baynu uga calool weydsannahay cidda ku haysa gacanta aynu uga baqanaynaana uga cabsanaynaana ma aha reer laascaanood maaha waa ciddii awalba dabada kaga jirtay wey waa ciddii awalba somalilan isku diraysay wey waa ciddii awalba ka shaqaynaysay hadimada iyo boholaha ay somalilan ku dhacday wey waa cidda gacanta maantana gacantogaalaynta somalilan ku haysa ee faragelinta aan la aqbali karin ku haysa wey waana cadow aynu wada ognayn laakiin reer laascaanood waddada muwaadiniin oo reer somalilan waddada aynu xaqiiqsan qolada ka yara hadlo oo qolada timidna ay yara dacayday waa ciidankayguuna waxaan islaahay waraggii noolaa waa ragga dambeeye laascaanood lagu haye qoladii soo baxsatay baa ugu badan intaana waanan ka raali gelinayaa ciddii ka cadhoota ciidanka qaranka ciddii ka cadhoota sababtu ay tahay way iga xanaajinaysaa saraakiishoodii oo laayo oo iyagu nabad qabaan way iga yara xanaajinaysaa ama way diiranaysaa rag badan baa baadhitaanka ka hadlay marka markii hore waxaynu ku joojinay nidhi war arrinta sidaa madaxweynuhu uga hadlay baynu ku daynaynaa arrinta ciidanka duqa muqdisho yuusuf madaale ayaa ciidamada la dardaarmaya weliba dardaaran keliya ma ahee si diiniyan ah ayuu u waaninayaa oo muxuu ka hadlayaa yuusuf madaale aan wada daawanno mudabdabiina bayna daalika laa ilaaha ulaa'i walaa ilaaha ulaa'i xaggana waa jirtaa intana waa jirtaa shabaabkana waa jirtaa dadka shacabka dadkooda deegaankooda xuraynayana waa ka mid tah suuragal maaha marka waa inaad dhinac u baxdaa waxaad u baxaysaa weliba difaacan naftaada iyo maalkaaga iyo eelkaagaad u baxaysaa qofka maalina u dhimanayaa maalinabaa dhima maayo qof laba jeer dhimatayaarka qof laba jeer dhimaysayaarka mar unba u dhimanayaa meeshaad ku dhimane goortaad dhimane kulli waa qodob maktubun cindilaahi waay saacaddii laguu qarana saacad kuugu darsoomi mayso adigoo naftaada badbaadinaayo oo deegaankaaga ee dalkaaga ee dadkaaga aad ka difaacanayso kuwa ku soo xadgudbaayo inaad dhimataa kuu roon waxaa laga dhawaajiyey duruuf badanaa laga dhawaajiyey duruuftaas hoosaan u fiirinaynaa wixii aan ka qaban karnay haddii ilaah yidhahdo waa ka qabanaynaa ceelka hadduu hallaysan yahay oo u baahan yahay ama matoor ama diinima ama uu u baahan yahay waa loo iibinayaa walwalaa ka qabina haddii ceel hadda cusbo hadda laqodaa uu yahay wuxuu u baahan yahay in la baadi goobo meequu ku qodmaa muxuu u baahan yahay ma riiga ma gacanta waxaasoo idin u baahan yahay waxaan kaloo rabnaa haddii ilaah yidhaahdo wax allaya wixi aan idinla qaban karno waxaan uga nimiday meeshii aan xukumayna odaga ka ahayn iyo meeshii aan deganayn annagoo wada soconnaan idiin nimidnay oo saacad walba aan qodtiida kula jirnay waxay ahaaday inaad heeryada iska qaadiin heeryada ma iska qaadaynaa cadcadday caddaanlixey inaan ku caysho waa jeclaay cadcadday caddaanlixey waxay u baahan tahay ragay u baahan tahay daqiiqadihii wararka baahinteennii fiidnimo ayaan weli bartanka kaga jirnaa oday dhaqameed muddo dhowr bilood ku xirnaa hargeysa ayaa hadda la soo daayey maxaa lagu haystay odaygan dacwaddiisana maxay ahayd waxaa ka warramaya qareenkii u doodayey suldaan maxamed muuse cune maxkamad muu arag wuxuu ku jiray jeelka madheera xabsiga madheera markii ugu horreeyey maxkamad arkay oo loo soo gudbiyey maxkamadda gobolka murudsheexna 7 bishii 7 bay ahayd waxaana lagu eedeeyey qodobo dhowra dacaayad qaranka ka dhana qaran dumisnimo faafin warar been abuura iyo haysasho hub sharci darra afartaa eedood ayaa ku taagnaa maanta oo 18 tahay bishii 9aad waxaa maxkamadda gobolka murudsheex ay ku dhawaaqday xukunkiisii waxaa lagu xukumay oo lagaga xukumay qodobadii waa lagu waayay qodobadii hore oo dhan waxaa lagaga helay 311 ka qabnay ka qofku quracwaarna waxay leedahay gobollo waxay leedahay maxkamad gobol maxkamad rafcaan xeer ilaalin booliis jeel meel wax walba way leedahay sabab macquul ah oo runtii looga soo qaada oo dee gobolka weynaysana waxaan uu qof bay luminaysaa waa in laga waantoobo in qof la iska soo transfer gareeyo oo gobol kale la keeno iyadoo aan wax baahiyo weyn oo loo soo gudbiyaa inaanay jirin aad iyo aad mahadsan tahay suldaan maxamed muuse cune maanta waa lagu sii daayey bal waa see dareenkaaga
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dareenkii waxa weeyaan dee waan xidhnaa marka hore waa farxad weeyo dareen farxadeed maadaama xorriyaddeeda dib u helay inkastoo dee ay igu dhaceen tacaddi fara badan oo xadhigaygan dee ku saabsan oo muddo badan aan xidhnaa markii lees xidhayana aan wax sifoo sharciga lee soo marin xitaa sidaa waxaan idin sheegay wahagaag aan muqdisho ku noqonno dacwad cajiib ah oo markii la dhegaystay lala yaabay ayaa muqdisho maanta ka dhacday dacwaddan dhegaysigeeda qaybo ka mid ah aan wada daawanno cali maxamuud cabdi oo ah muwaadin askari oo asluuba waxaan ku soo eedeennay qodobada waxaan codsanaynaa in lagu qaado qodobka 7aad qodobka 6aad faqradiisa 2aad qodobka 25aad qodobka 14aad qodobka 18aad qodobka 21 xeerka la dagaalanka argagixisada waxaan codsanaynaa qodobadaasoo dhan in lagu qaado qareennada difaacaya eedeysanayaasha ayaa dhammaantood si wada jira u codsaday iyagoo sababeynaya in muwaakiliintooda xorriyad la siiyo qodobka 6aad farqadiisa 2aad ee xeerka la dagaalanka argagixisadu annagu nama qabto muwaakilkeenu ma qabto muwaakilkeenu in warqad dadkoo dhan ay goostaan ninkii xamarka baxaayo dambiilo kuma noqon karo marka haddii maxkamaddu noo ogaanayso waxaan jeclaan lahaynba inay mar labaad bristationka ku soo celiyaan xasan cali xasan wacaan ay dhahaan kan maxaad ka tiri kan yaa ku soo diray mid midow sheegi karaa xasan cali xasan waxaa cajiib ah in muwakkilkayga iyo marxuumku aanay is aqoonin isku xaafad ahayn weligoodna aysan is arkin bal adugu khiyaas in lagu diro qof aadan aqoonin dhirirka midabka meeshuu degan yahay haddana lagu yidhaahdo soo basaas ee adiga aad keento ood ka soo warbixido haddana sidaas lagu hoosgalay ma jirto sabab keeni karta iyadoo la heli karo dad ehel u ah u dhow la shaqaysta intaasiba ay suuragal tahay in muwakkilkayga loo doorto wahagaag xubintii kaftankan caawa idin hayaa haddaad maqli jirtay dhaantada la ciyaaro maanta waxaan idin hayaa ninka warramaya bal dhaantadan ma martibaa mise marti ma ahan ila daawada dhaantadu marti ma aha maqla hamoodina dhaantadu inay marti tahay reerkii lahaana way la joogtaa gobolkeediina way joogtaa dhaantada jigjiga joogta iyo midda ay ka joogta waa walaalo dadka kale ee dhaantada farigelinayo reerkii lahaabaa dhaantadan ilaashanaya haddaad dhaantada ka dambeyn weydaan waa isgaabinaysaan waan idin gaabin dhaantada ha laga dambeeyo dhaantada aad iyo aad ha looga dambeeyo marti maaha reerkii lahaa bay dhex joogtaa mar kalean ku celi dhaantadu marti maaha reerkii lahaa bay dhex joogtaa barnaamijkeennii daqiiqadaha wararka caawa intaasi haynoo joogo waad ku mahadsantihiin daawashadiinna ballankeennu waa birrito 2 duhurnimo hadduu allaha awoodda la oggolaado inta ka horraysa nabadgelyo faa'iidooyinka adeegga iibesa sendi money dirista lacagaha withdraw money qabixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka iibesa bay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka iibesa global xawilaadaha iibesa mastercard ijwa mastercard banking service adeegyada bangiga iibesa goor kasta iyo goob kasta